عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام. maanta waxaan qaadan doonaa insha Allah waxaan noo socday taxane aan ku sharxeyno GB WhatsApp aan ku sharxeyno waxaan ka soo qaadanay laba cashir oo kala ahaa sida loogu xirto GB WhatsApp oo isticmaalayo chatting qof adiga qof kale dhex maray si security loogu xirto waxaan kaloo soo qaadanay in sidii qof message ku soo diray camal ama message qof ku soo diray ka dileedo kala aad u arki lahayd ama qofka message ka uu ku soo diray oo ka dileedi karin ana qaabka aad ku sameyn lahayd aan soo aragnay maanta waxaan qaadan doonaa qayb yar oo kale oo kamid ah faa'iido gooni leh aan lahayn WhatsApp-yada kale GB WhatsApp kan qaadan doonaa GB WhatsApp ka kana aan soo kicinayna markaan soo kicino qofka aad markaas rabto inaad ama aad iska xirto ama aad ku sameyso shakhsi u sameyn kartaa ama waxa u sameyn kartaa as group laakiin shakhsi ahaanta fiican hadda tusaale ahaan aniga kii ku baratikeenayo si aad u fahantaan hadda magaciga kaas waxa waaye WhatsApp-kiga caadiga ah aan ka soo diray assalaamu calaykum aan ka soo diray waa kana assalaamu calaykum aan ka soo diray okay markii ay soo dhacday waxaan sameynayaa qofka aad rabto inaad xogtiisa ama xogtiisa aad si uun u isticmaasho ayaa tagaysaa profile-kiisa kor aad jagsinaysaa qaybtii hore waxay ahayd security oo qaybtan saddexaad ah laakiin hadda faa'iido waxaan ka rabnaa ama aan sharxaynaa qaybtan ah custom privacy faa'iidooyinka ay leedahay okay qaybtan ma lahan WhatsApp-yada caadiga ma lahan laakiin WhatsApp-kan GB-ga uu leeyahay okay meeshan ayaan furaynaa waxay ka kooban tahay 8 2 3 4 5 6 7 wax bay ka kooban tahay todobadaasi waxay kaliya faa'iidooyin gooni kala leeyihiin uusan lahayn WhatsApp-ka kala caadiga midda koowaad oo ah in qofkan markaad tigsiiso ama aad doorato checkbox-kaas aad doorato hide blue tick qofkan markuu wax ku soo diro sidaad ogtihiin qofka fariin markuu ku soo diro WhatsApp-ka adna aad online tahay fariintaas aad furto qofka ku soo diray fariinta uu arkaya maxaa sababay inuu arko ama uu dareemo waxa korayso blue tick ama laba tick oo blue ah labada tick marka way kala yihiin labada tick midna waa markuu WhatsApp-ka qofka online ka yahay uu dhaco laba tiga korayso haduusan qofka online ahaynna hal tiga korayso haduu online yahay oo fariintii arkana labadii tick ee saarmatay ee blue noqonayso okay blue tick taas hadaad hay dhahdo ama aad ka qariso waxaad ku salaalanayso qofka in fariinta uu ku soo diray inaad aragti in kale uusan dareemin okay waxa soo haray qaybtan labaad ee hide second tick tan waxay tahay tusaale haddadan midaan ka hadlayno kale markii qofka aad fariin u dirso kale ama fariin uu ku soo diro qofkii fariinta ku soo diray hadii aad online tahay wuxuu ku ogaanayaa hadii aad online ka qarsatay xataa wuxuu ku ogaanayaa fariintaas inay ku soo dhacday ama online aad u fariintaada fariintiisa aadan fiirinin oo kale ama ay ku soo dhacday fariinta soo gaarto wuxuu ku ogaanayaa laba tiga koreyso hadii mar laba tig kortana adiga waxa macnaheedu cadeen u tahay inaad online tahay marka hadii aad hide second tick aad doorato ama aad jagsiiso waxa sahlanaanayso in qofkan uusan dareeminba inaad online tahay waxa jiro kale qaybta codka hadda markii la soo diro kale hadda laba tick waxa iska saartay hide second tick dhahday laba tick waa iska qarisay markaan blue microphone markaan jiro qofka markuu cod ku soo diro codkiisana aad furto aad dhageysato waxa koraya blue microphone ama macnaha microphone-ka blue uu noqonaya marka meeshan saddexaadna hadii aad doorato waxa ka qarsamaya qofka codkiisa inaad dhageysatay in kale ma dareemaa hide typing qaybtan afraad waxay tahay qofkan markuu wax ku soo qorayo ama fariinta aad u qoreyso tusaale ahaan adigoo fariin badan aad qoreysaa qofkii wuxuu isleeyahay ama fariinta aad qorayo kale haddana waxaa damacday inaad iska dayso fariintaas oo kale qofkii ku dareemayo inta aad fariinta qoreyso ku dareemayo fariintaada u dhacaysa kaliya xilliga soo qorto laakiin ogaan karo typing ma arkaan hide recording qaybta shanaad waxay tahay qofka markaad cod duwayso kale codka uu ka halaabi karo adoo cod in badan duwayo kala codka ka halaabi karo waxa ka dhaxgali karo codkii waad ka laabato kale ama codkii inaad iska daasaa go'aansatay oo hadana typing ka dhigato ama qoraal u dirto qofka ma dareemayo marka inaad cod soo duwaysay
hide recording qofkan intaa codka duwaysid ma dareemi karo. Waxaa jirto laba qayb oo ugu muhiimsan ee ah si publicna loo sameyn karo si guud si oo qaas ahaana qofka shaqsiga loogu sameyn karo in qofkan aad iska qariso view status macnaha statuskaaga inaad aragtay inuusan ogaanin macnaha statuskiisa qofka inaad fiirisay ma ogaanayo. Hadda waa tagaysaa statuska qofka soo dhigaan tagaysaa qofkaas statuskiisa inaad fiirisay ma ogaanayo. tusaale ahaan qof aad ka dhuumanaysid sidoo kale ama wax kale si kale rabtid inuusan ku arkin oo kale aad hide leedahay kadib ogaanaya inaad statuskiisa fiirisay inaad online tahay dhan ma ogaanayaba. Anti delayed message qaybtan waa muhiim adigoo ka maqan WhatsApp oo kale horena cashirka hore aan ugu soo qaadanay ayadoo si jamac ah laakiin si shakhsi ahaan tan waa loo sameyn karaa hal qof oo kale aad samaysan kartaa markii wax kaa dileed intuu wax kuu soo diray kaa dileed aad ka shakisan tahay si gooni ah u dooranaysaa anti delayed message ah leedahay qofka hadduu fariin kuu soo diro fariintaas ma dileedi karo. Markaas todobadan qayb waxay leeyihiin faa'iidooyin gooni ah WhatsApp-yada kale qaar way leeyihiin oo macnaha waxaa loo isticmaalaa WhatsApp sidiisa kale ma lahan WhatsApp businesska iyo WhatsApp caadiga ma lahan laakiin waxaa loo isticmaalaa application oo gooni ayaa loo isticmaalaa waxaan in la sameeyo laakiin WhatsApp-ka wuxuu cajiib ku yahay waxay tahay inuu bahaladan dhan u wato. tusaale ahaan waxaad isticmaali lahayd hadoo kale 7 application oo kala duwan oo kala isticmaali lahayd hadda laakiin one application 1 GB WhatsApp ayaa isticmaalaysaa. waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. linkigan GB WhatsApp-na waxaa idin soo dhigi doonaa qaybta description-ka. waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.